ugu horeyntii allaah ayaa mahad leh. marka labaad dhammaan asxaabta aan beejka ku kulanno inta nagu cusub intii hore ila socotay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan. waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno mowduuc ku saabsan infertility, madhaleysnimada, gaar ahaan qeybta ragga. marka ay marxaladda noqoto in ninka ragga ee shahwadiisa ay noqoto qaababka madhaleysnimada. intaanu gudagelin saaxiibayaal, waxaan si gaara idinkaga codsanaa inaad kanaalka subscribe garaysaan. intii hore subscribe garaysay aada iyo aaday ugu mahadsan yihiin. inta naga hilmaamtay, inta gadaal noogu soo biirtay, waxaan mar labaad idinka codsanaa inaadan subscribe-ka iga hilmaamin. taasi waxay ay tahay farxad iyo inaan mowduucyo kale soo guliyo kuwaasoo bulshada u ah kuwa aada u muhiim badan. marka laga hadlayo biyaha ragga ama shahwada, waxaa laga fiiriyaa qaabab badan. dabcan marka ugu horeysa waxaa la fiirinaa morphology ahaan, nooca ay shahwada ay tahay, qaabka ay u sameysan tahay iyo shapekeeda sida uu yahay. haddii morphology-ga uu aada u cilideysan yahay, waxay noqon kartaa marxalada caafimaad daro, taasoo ay la macno tahay in qofkaasi uu yahay qof madhaleysnimo ama shahwadiisa aysan bacrimi karin. marka labaad waxaa kaloo laga fiiriyaa mobility-ga, qaabka ay shahwada u soconeysa ama u dhaqdhaqaaqeyso. haddaysan shahwadiisa dhaqdhaqaaq badan aysan lahayn ninka ragga, dabcan dhaqdhaqaaqeeda aada u yaryahay, ayadana waxay ka mid tahay noocyada madhaleysnimada keeno. waxaa kaloo laga fiiriyaa milliliterka, yacni inta volume ay tahay biyaha ragga. haddii uu ragga uu ka badan yahay 2 milliliter ama 1.5 milliliter, dabcan waxaa la dhihi karaa shahwadaas mid aada iyo aada quality-geeda iyo quantity-geeda u fiican. laakiin wixii ka yar 1.5 ama 1, dabcan markaas waxaa jirto cilad caafimaad daro. inkastoo uu bani aadamka uu dadaalo, balse waxaa had iyo jeer qoran midda allah subxaana wa tacaala. iyadoo qofka uu xanuunsan yahay ama ay dabcan ay jirto marxalada caafimaad, ayaa haddana ilaahay wuxuu hadiyad ahaan ugu maneystaa awlaad. balse waxaa laga rabaa qofka bani aadamka inuu dadaalo markay marxaladahan ay imaadaan. haddii uu arko shahwadiisu inay aada u daciiftay ama noocyo aan kasoo hadalnay qaar ka mid a inay tahay, waa inuu la tashtaa dhakhtarkii ku habboonaa ee baarayay iyo shaabaarada lagu baarayay, taasoo ka caawini karto inuu ka badbaado marxaladda madhaleysnimada. waxyaabaha sida guud ee u sababi karo had iyo jeer in raggu ay noqoto shahwadooda infertility ama madhaleysnimo, 80% waxay saameysaa xiniyaha iyo xididaha ku hareereysan, infekshanada qeybahooda kala duwan. sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah noocyada loo yaqaano cudurada STD, sexual transmitted disease, gaar ahaan kuwa ku dhaco genital organs, ay ka mid tahay gonorreeyada, kalaamiyada, cudurka jabtada iyo kalaamiyada. labadaas cudur haddaana qofka laga daaweynin waxay sababi karaan inay hoos u dhigaan nooc ahaan iyo qaab ahaan iyo dhaqdhaqaaq ahaan shahwada. sidoo kale waxyaabaha kaloo sababi kara in qofkan shahwadiisu ay noqoto nooca madhaleysnimo, waxaa ka mid ah in uu kansar uu ka asiibo dhanka iyo xiniyaha. sidoo kale in xiniyihiisa uu noqdo torsion, mid aada isugu wareegsan ama isku duuduubma. sidoo kale waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in uu caabuq uu ku dhaco xiniyaha gudihiisa iyo qeybaha ku hareereysan. lama soo tirikoobi karo waxyaabaha saameeya in quality-ga ama tayada shahwada ee aada hoos ugu dhigto. waxaa ka mid ah cudurada aadka u daaha, chronic caseska sida diabetic mellitus-ka,
sidoo kale waxaa kaloo kamid ah prostate glandka in uu kansar uu kaga dhaco qofka. sidoo kale waxaa kaloo kamid ah kansariska noocyadiisa kala duwan ee jirka baniaadamka ku dhaco. waxay aada u yareeyaan awoodaha uu jirka uu leeyahay, taasina waxaa ka dhalinaysa in hormoneskii ay aada u yaraadaan, aysan soo sameysmi karin intii loogu baahnaa. waxyaabaha kale waxaa kamid ah dabcan in qofka ay shahwadiisa madhaleysnimo ay noqoto inuu hadii jeer uu yahay smoking and alcoholism, inuu yahay qof sigaarka aada u cabo, qamradana cabo, xashiishkana cabo ama shiishadana isticmaalo. dhammaan afartaas nooc waxay keeni karaan in ay jirkaaga ku furaan waxyaabo badan oo antigen ah, kuwaasoo jirka awoodihiisa hoos u yareynayo, qulqulkii dhiigga iyo hormoneskii dhacamada lasoo deynayana saameyn ku noqonayo. dadka sigaar cabistoodu badan tahay, qamrada cabo ama noocyada kala daawooyinka qaldan isticmaala, waxaa lagu arkay inay ka qaadaan madhaleysnimo ama infertility. waxaa jira marka dhowr nooc oo ay saameyn ku noqoto shahwada. waxaa kamid ah in ay jirto marxalada loo yaqaano aspermia, in qofka laga waayo wax shahwo ah. qofkan dareen waa uu leeyahay, sexual intercourse waa uu sameyn karaa, xaaskiisa waa u galmooni karaa, erectionkiisa iyo kacsigiisa waa uu hagaagsan yahay, laakiin marka uu u tago waqtiga ejaculation ama dareenka biibaxa markuu imaado, waxaa laga weynayo sperma, taasoo ka dhigan in qofkan aysan ka imaani karin wax sperma ah ama biibax. dareemihiisa kale dabcan waxaa laga yaabaa inuu aada u fiican yahay, laakiinse markii ay noqoto ejaculation inuu qofku uu biibaxo uu iska weynayo wax biibax ah. dabcan marxaladan waxaa loo yaqaana aspermia. waxyaabo badan ayaa saameyni kara marka qofka markuu iska waayo shahwada. waxaa kamid ah dabcan in ay jiraan inay xiran tahay marinkii shahwada ay soo marayeen, inaysan shahwada si fudud ay kusoo bixi karin, uu jiro waxa loo yaqaano obstruct, tubooyinkii shahwada soo qaadayay ee urethraha ku darayay inay qaarkood ay xiran yihiin. sidoo kale waxaa kaloo jiri karo congenital defect, inuu qofkan si alarabaani ah ugu dhashay, tubooyinkaas qaarkoodana ay xiran yihiin, soona bixi karin. mararka qaarkoodana waxaa sababi kara infectionska noocyadiisa kala duwan ee qofka ku daaha, taasoo suurtagal ahayn inay shahwada ay kasoo baxdo. sidoo kale waxaa kaloo dhici kara marxaladan aspermia in retrogression ay jirto, shahwadii qofka gadaal ay ugu laabato, ay marto wado aada u qaldan, taasoo ay ku shubi karto dhanka iyo kaadiheysta. marxaladan aspermia hadday jirto oo lagu ogaado qofka in shahwada aysan ka imaaneyn, wuxuu u baahan yahay isbitaal iyo dhakhtar si gaara ugu takhasusay dhanka iyo shahwaadka iyo baaritaankooda, iyo in kombyutaro la saaro la ogaado marinka shahwada inay xiran yihiin iyo in kale. haddii ay xiran tahay dabcan waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo reconstructive surgery, meelaha tubooyinka xiran in marinkaas tubooyinka la furo si caadi ayna shahwadiisa uga soo bixi karto. sidoo kale waxaa kaloo jirto dhanka iyo shahwaadka markaan ka hadlayno marxalad loo yaqaano teratozospermia. marxaladan ragga qaarkooda waa ay la kulmaan in qofka lagu arko shahwadiisa low morphology, yacni qaab ahaan iyo nooc ahaan inay aada u liidato, taasoo suurtagal aysan ahayn in qofka si fudud dabcan shahwadiisa ay ku bacabriminto ama ay u gudubto dhanka iyo ugxaanti gabadha. marxaladan teratozospermia waxaa lagu sheegaa inay tahay qaab ahaan iyo nooc ahaan ragga shahwadoodu inay aada u hooseyso, waxayna ka dhigan tahay qaab ahaan sida shahwadu u sameysan tahay, saddexda qeybood ay ka kooban tahay, madaxa, jirka iyo seenta inay cilideysan yihiin qaarkoodu, in ay leedahay laba neg ama laba madax oo kuusan, taasoo si fudud aysan ku geli karin ama fertilization aysan u sameyni karin dhanka iyo gabadha markay ay bacrimimayso. sida caadiga ah shahwadu ama biyaha ragga waxay u sameysan yihiin qaab dhuuban, madaxeeda kuusan yahay, aysan aada u weyneyn, jir iyo dabana leh.
haddii madaxa uu weyn yahay waxay ka dhigan tahay culays badan inuu jiro, inaysan shahwada gudbi karin, aysan ku milmi karin dhanka iyo gabadha, taasoo uu madaxa uu aadka u weyn yahay ay noqon karto cilad saameysa ragga. waxay kaloo ka saameyni kartaa dhanka iyo boodhiga ama jirka dhexe ee shahwada ama biyaha ragga ay ka sameysan yihiin. waxay kaloo ay saameyni kartaa qeybta dambe ama tailka, mid dhaqdhaqaaqeedu aada u yaryahay, morphologigeeda iyo nooceedana aada u yaryahay. haddii ay ciladeysan tahay qaab ahaan iyo nooc ahaan shahwada, waxaana suurtagal ahayn in ninka ragga uu si fudud uu shahwadiisa ay u bacriminto. waxay qaadan kartaa muddo sanooyin. marxaladan teratospermia waxaa lagu sheegaa midda ugu badan ee waxyeeleysa ragga, in shahwadoodu ay tahay nooc dabcan oo aada u hooseeya, ama inay leedahay laba dabcan madax, taasoo si fudud aan ku gudbi karin, uguna milmi karin dhanka iyo gabadha ugxaanteeda. waxaa ka qeyb qaata marxaladan teratospermia inay ciladan ragga ay kasoo muuqato, shahwadooduna qaab ahaan iyo nooc ahaan aada u hooseyso. waxyaabo badan ayaa dabcan lagu saleeyaa. waxaa ugu horeeya inay aada u qaldan yihiin ama aada u yaryihiin dhacaamada jirka bani-aadanka, gaar ahaan kuwa ragga iyo shahwaadkooda ka sameysan. dhacaamada shahwada xoojiya ama dabcan aada ugu qeyb qaatay inay shahwada ay sameysanto ay ka mid yihiin follicular stimulating hormone iyo luteinizing hormone laga soo daayo qanjirka ku yaala maskaxda, inuu ciladeysan yahay dhacaan ku filan uu soo deyneynin. labada dhacaan testosteronka ka qeyb qaadanaya inuusan soo deyni karin. sidoo kale waxaa kaloo kamid ah genetic defect, in qofkan hidisidayaashiisa dhanka DNA-ga oo shahwada inay aada ayagana u ciladeysan yihiin, inuu qofka ay ka ciladeysan tahay dhanka iyo gene DNA-ga, habka ay shahwada u sameysmayso iyo factorieska chromosomeska ay ka sameysmayso inay ka ciladeysan yihiin, taasoo suurtagal ahayn in shahwadiisa si fiican ay noqoto nooca ay tahay. waxayna noqon kartaa dhanka iyo familka, in awowyaashiisa qaar ka mid ah ee marxaladahan ay la kulmi jireen. sidoo kale waxyaabaha kaleo teratospermia ka qeyb qaadan karo waxaa kamid ah infectionska noocyadiisa kala duwan. sidoo kale waxaa kaloo aada uga qeyb qaadan kara in qofka ay marxaladan saameyso waxa loo yaqaano varicocele veins, inuu ku dhaco dilatation, inay ciladeysan yihiin, inay noqdeen kuwo aada u dhadheeraada, dhiig ku filanna uusan imaani karin meeshaas, ay kala xiran yihiin, dhiigina uusan dib u laaban karin. waxyaabaha kale waxaa kamid ah in qofkan uu yahay alcoholism iyo drug abuse iyo smoking inuu yahay. waxay sababi karaan in shahwadiisa ay aada qaab ahaan in nooc ahaan isbedesho. aada ayay u fara badan tahay waxyaabaha keeni karo marxalada madhaleysnimada ee teratospermia. sidoo kale waxaa kaloo jirto marxalad loo yaqaano acetonospermia, in qofka ama ninka ragga biyihiisu aysan lahayn wax dhaqdhaqaaq ah. motility-ga ama mobilizationka ay sameynayaan in shahwadan ay gudubto ama ay ku dhex socoto gudahii inay aada u yartahay. marxaladan haddii jeer ragga qeybahooda kala duwan waa lagu arkaa. acetonospermia sidoo kale waxaa ka qeyb qaadan kara inuu qofku life stylekiisa waxyaabo badan uu isbedel uu sameeyo dhanka noloshiisa, inay sababtay in shahwadii ay noqoto mid dhaqdhaqaaq badan aan sameyneynin ama progression direction hore aan u soconeynin dhanka iyo ugxaanta dumarka aysan la bacrimi karin. waxaa kamid ah in infectiono badan qofkan uu kusoo laabtay, in chronic cases badan oo cudurada daaha ee aada jirkiisa u saameeyeen, inuu jiro waxa loo yaqaano inuu yahay alcoholism ama sigaar cabistiisa inay badan tahay, taasoo ay noqon karto in shahwadiisu ay socodkeeda aada u yaraado. infectionka dhanka galmada lagu kaada ayaa sababi karo. marxaladan waxyaabo badan ayaa saameyn ku noqon kara in qofka ay ku dhacdo caabuqyada qeybahooda kala duwan, gaar ahaan cudurada galmada lagu kala qaado. sidoo kale in qofka ay jirto testicular carcinoma ama kansar dhanka xiniyaha ugu dhacay, kaasoo shahwo badan aan soo saari karin, mobilitygiisana aada u yaraaday. sidoo kale waxaa kaloo jiro marxalad loo yaqaano necrospermia, in baaritaano markii la sameeyo sheebaar la geeyo shahwada lagu arko inuu jiro in badankeeda shahwada ay dhimatay, in ninka ragga shahwadiisa ama biyihiisu ay yihiin kuwo aada
badankoodu u dhintay. marxaladan necrospermia hadii jeer waa lagu arkaa ragga badanaa 60% waxay noqon kartaa shahwadoodu inay tahay mid dhimatay ama isbedeshay aan ku jirin wax dhaqdhaqaaq ah, nooc ahaan aad isku bedeshay, volume-keedana aad. afartan marxaladood aan ka soo hadalnay: aspermia, teratospermia, actinospermia iyo necrospermia. hadii jeer waxay saameeyaan ragga qeybihiisa kala duwan. guud ahaan waxaa isbedel ku imaanaya qaab ahaan noocay u sameysneed shahwada, motility dhaqdhaqaaqa inay rabto in la rabo hore inay u socoto shahwadii, volume-kii ama milliliterkii ay shahwada ahaayeen dhammaan waxay wadihiin kuwa aada u cilideysan, kuwa ay noqon karto in shahwadaasi ay u badan tahay infertility ama madhaleysnimo. waxaa lagaaga baahan yahay haddaad marxaladahaas isaga shakisan tahay inaad la xiriirtid dhaqaatiirta sida gaarka u baaro dhanka iyo dhicaamada ama shahwaadka. in la ogaado marxalada heerka ay tahay waxay ka dhigan tahay inaad ka badbaadi kartid goor hore. laakiin adiga waxaa lagaa rabaa inaad la timaado dhanka iyo nolosha isbedel weyn. haddii aad tahay dabcan qof isticmaala daawooyinka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo waxyeeli kara inaad iska yareysid daawooyinkaas. sidoo kale haddaad tahay qof sigaar cabistiisa badan tahay, qamarada cabayo, noocyada kala duwan, xashiishka iyo alkoolada isticmaalaya inaad ka hartid. qofka wuxuu u baahan yahay marxaladahan hadduu la kulmo in baaritaano aada uu sameeyo, inuu ka warqabo heerka ay mareyso shahwadiisa, levelka ay tahay. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aada iyo aada idinkaga mahad celinaa sida aada u dhageysateen kelibiska aan soo geliyo iyo marxaladaha aan ka hadlo. dabcan idinkana su-aalo waad soo weydiini kartaan, anigoo si gaara u tixgelinaya dadka sida gaarka iisoo weydiiya aan ugu soo jawaabi doona haddii ala idmo. aada iyo aada u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.